kulan wacan oo wanaagsan saaxiibayaal halkaad naga daawanaysaan waa Boundless Media wararkan maanta idinku hayno qodobadiisa waxaa ka mid noqon doona aqoon-yahankii la waayay oo xalay gurigiisa ku hoyday weerar dhimasho iyo khasaare iskugu jiro oo maanta ka dhacay Ruushka wararkii ugu dambeeyay ee qarax ka dhacay magaalada Muqdisho iyo khasaare u geystay daawadayaal ku soo dhawaada qodobadaas oo faahfaahsan waxaa xalay xoriyadiisa dib u helay aqoon-yahankii Soomaaliyeed oo muddo 10 cisho ah la waayay kaasi oo lagu magacaabo Cabdiwahab Sheekh Cabdisamed qoyskiisa ayaa xalay xaqiijiyay in Professor Cabdiwahab isaga oo badqaba la helay isla markaana gurigiisa ku hoyday waxay sidoo kale qoyskiisa sheegeen in wax dhibaato ah loo geysanin waxay ka gaabsadeen in faahfaahin dheeraad ah ay ka bixiyaan siideyntiisa Master Cabdiwahab ayaa dhanka kale la sheegay in su'aalo la weydiiyay kadibna la soo fasaxay isla markaana aan maxkamad la soo taagin afar qof aan heebtooda la garanin ayaa horey loo sheegay inay ka afduubteen bartamaha caasimadda dalka Kenya ee Nairobi walow aan la ogeyn sababaha loo qafaashay si kastaba ha ahaatee lama oga cid ka dambeysay afduubkiisa ujeedka laga lahaa Master Cabdiwahab Sheekh Cabdisamed ayaa ahaa aqoon-yahan cilmi durugsan u leh arrimaha geeska Afrika waxa uu sidoo kale qayb ka ahaa qaar ka mid ah macadyada cilmi baarista ee ka dhisan geeska Afrika isagoo sidoo kale ahaa bara jaamacadeed waxna ka qori jiray mid ka mid ah warbaahinta dalka waxa uu sidoo kale ahaa falanqeeyo ka faallooda arrimaha Soomaaliya isagoo la sheegay inuu taageero weyn u ahaa madaxweynaha waqtigiisu dhamaaday ee Maxamed Cabdullaahi Farmaajo haatan nin hubeysan ayaa maanta rasaas ku furay xarunta jaamacadda ku taala dalka Ruushka isagoo dilay ugu yaraan 8 qof sida ay sheegeen dambiibaarayaasha waa toogashadii labaad oo arday lagu beegsado oo isla sanadkan ka dhacdo dalkaasi muqaar lagu baahiyay baraha bulshada ayaa muujinaya dad daaqadaha jaamacadda oo ku taala magaalada Bremen ka soo tuuraya agabyadooda ka hor inta aysan ka soo boodin guddiga baara dambiyada waaweyn ayaa sheegay sidoo kale dhowr qof oo kale lagu dhaawacay weerarka jaamacadda Bremen State National Research University isla markaana ninka weerarka fuliyay oo arday ka ahaa jaamacadda la dhaawacay lana xiray warbaahinta dawladda ayaa baahisay muuqaalo muujinaya qofka weerarka fuliyay oo xiran dhar madow iyo koofiyada adag ee lagu kaxeeyo mootooyinka isla markaana isagoo dhex socda jaamacadda bayaan ay baahisay wakaaladda wararka ee Ruushka ayaa wasaaradda caafimaadka waxay ku sheegtay in la daweeyay 24 qof oo ay ku jiraan 19 ku dhaawacmay xabado toogashada ka dhacay iskuulada ayaa nadir ka ah Ruushka sababo la xiriira amniga jaamacadda aad loo adkeeyay iyo inay adag tahay in si sharci darro ah loo iibsado hubka inkastoo ay suurtagal tahay in la diiwaan gashto hubka wax lagu ugaarsado haatan sidoo kale warar kala duwan ayaa ka soo baxaya khasaaraha ka dhashay qarax xooggan oo maanta ka dhacay qaybo ka mid ah magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya kaasi oo geystay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac intaba qaraxan oo ahaa miino ayaa waxaa lagu soo waramayaa inuu ka dhacay xaafadda Gubta ee degmada Daynila waxaana la eegtay gaari sida ay sheegeen ilo deegaanka inta la xaqiijiyay waxaa qaraxani ku dhintay ugu yaraan 3 qof halka ay ku dhaawacmeen tiro kale oo intaasi oo ka badan sida ay noo xaqiijiyeen dadka deegaanka wararka ayaa sidoo kale intaasi ku daray in gaariga la qarxiyay ay la socdeen askar ka tirsan ciidamada dawladda kuwaasi oo ka mid ahaa dadka ay waxyeelada ka soo gaartay sidoo kale waxa goobta gaaray ciidamo ka tirsan kuwa ammaanka oo midadka iyo dhaawaca dadka ka soo qaaday halkaasi kadibna xiray meesha ay wax ka dhaceen ilaa haatan ma jiro wax hadal ah oo ka soo baxay maamulka degmada Daynilo iyo saraakiisha lamaha ammaanka oo ku aadan qaraxaas xaaladda ayaa weli aad u kacsan waxaana socda baaritaano dheeraad ah oo ay wadaan ciidamada ammaanka ee gaaray halkaas Muqdisho ayaa muddooyinkii la soo dhaafay ka dhacay falal lid ku amniga kuwaasi oo ugu badan qaraxyo waxaana ugu dambeeyay kii ka dhacay degmada Wadajir daawadayaal taas ayaan ku soo afmeerayaa war wixii dalka iyo dafaha caalamka aan idinkaga hanay wararkeena maanta waxaa idiin soo saaray idin akhrinay anigoo Cabdinajiib Cabdullaahi Najib Akhyaar intaan wararkeena dambe dib ugu kulmi doono waxaan idinkaga tagayaa sidaas iyo fi amaanillah